jiirkaaga dixiraale meelaha jinaadka ah lafta joofa baa hari saantaada jirifta ah jeer hore waxaad faratay jildigaa ku marakici warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin waxa adduunkii lala joogay majikaartan baa jira in qiyaama jiri doono nina yuusan jaaxidin jimcaha dadku maraga jinniga iyo wanaaskaba labadii barnaamij ee hore sidii aan ku soo faahfaahiyey jiiftada oo masafana loo yaqaani waa hab kale oo ka mid ah hababkii saddexda ahaa ee raggii hore ay adeegsan jireen markay doonayaan inay maansa curiyaan farsamo ahaan dhinaca miisaanka markaynu ka eegno meeliska jiiftadu midka geeraarka waa ka dheeryahay haddii labada qaybood ee uu ka kooban yahay isku mid loo aqoonsadana meeliska gabayga ayayba ismiisaan la egyihiin inkastoo ay habdhaca ku kala gedisan yihiin sidoo kale xagga qaafiyadana labadoodu waa isaga midoo waxaa qasab ah meelisyadeeda ku walba oo ka mid ah in laga dhex helo laba eray oo xaraf qurax ka wada bilowda ulajeedooyinka ay jiiftada kaga maansoon jireen soohdin ma lahayn waxaase aaraaba adeegsigeeda lagu yiqiin wadaadada kolba kuwooda aqoonta diinta islaamka iyo awoodda maansa curinta la isugu daro kolka ay haddaba u tafaxaytaan inay caamada wacdiyaan qalbigana u jilciyaan ayay wadaadada maansayahanada ahi u soo diyaarsan jireen jiifto dareenkooda diineed gilgisha waxay curin jireen masafooyin ay si guud ahaaneed ugu toosinayaan dhaqan maalmeedka dadkii ay culimmada u ahaayeen xiriirka iyaga iyo eebbe ka dhexeeya iyo midka dhexdooda ah intaba marka ay sidaas yeelayeenna waxa ay wadaadadu ogaayeen bulshadii Soomaaliyeed ee qarniyadii tegay sida la yaab kale ee ay u muunayn jirtay maansada iyo maansayahankaba waxay kala ogaayeen haddii maansada wax loogu sheego sida fudud ee Soomaalida xilliyadaas loogu saameyn karay maankoodana loogu taabi karay sidaa daraadeed ulajeedo hor leh ayay wadaadadii hore ee Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen ulajeedooyinka maansada taas oo lagu magacaabo alifkaya ama alifiyeen haddii aan tilmaamo waa maanso qayb isu raacsan qayb walbana ay ku qaafiyadaysan tahay xaraf gaara oo ka mid ah xuruufta af Soomaaligu ama Carabigu ka kooban yahay kuwaas oo shaqal iyo shibanaba isugu jira waxay oran jireen alifiyeen ba'iteen laanyeen kaafiyeen ama alif waxaan ka iri ba waxaan ka iri ra waxaan ka iri jin waxaan ka iri ilaa uu maansayahanka wadaadka ahi uu wada ileeyo xuruufta alifku ka kooban yahay ama Carabi ha ahaato ama Soomaali ha ahaatee waxaa xaraf kastaba loo xambaarin jiray qayb ka mid ah wacdiga uu wadaadku rabo inuu dadka u gudbiyo halkaasna waxaa ka soo bixi jirtay tix isku dhan oo inkastoo aysan xaraf qura ku wada tirsanayn haddana in deelqaaf lagu sheego ay bulshadu uga bi'i jirtay masafooyinkaas afkooda hooyo loogu tirin jiray ayay caamadii Soomaalidu ka doorbidi jireen kuwii Carabiga ahaa ee aanay garan jirin mararka iyaga oo dikriyaya ay wadaadadu degmada dhexdeeda kaga looqayn jireen sidaa darteedna kuwaas af Soomaaliga ah ayay si fudud kor uga baran jireen iyagoo macnahooda garanaya wacdiga iyo waanada ay sidaana ugu xiranaya waxaa malahayga lagama maarmaan ah inaan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo jiifto aan ku tusaaleynayo lagana ogaan karo tilmaamaha ay leedahay iyo habdhaca u gaarka ah waxaa allaha u naxariistay tiriyey xaaji cali cabdiraxmaan fiqi oo ahaa qoraa mufti ah kutub door ahna ka dejiyey kasmooyinkii xilliyadaas la yiqiin sida xidigiska handasada iyo guud ahaan culumta diinta islaamka la xiriirta wuxuu ka mid ahaa culimadii Soomaaliyeed ee bartamihii qarnigii 18aad ilaa barkii hore ee qarnigii 19aad uu magacoodu aad u dheeraaday dalalka bariga dhexe qaarkood ayuu xaajigu joogi jiray sida Xijaas wuxuuna muddo ku nagaaday gobollo dalka Hindiya ka mid ah halkaasoo uu diinta islaamka ka faafin jiray masaajid haddaba la yaqaana uu ka dhisay dooxada Nugaaleed ayuu muddo fadhiyi jiray halkaasoo uu xer badan diinta ku bari jiray dadweynahana ka wacdiyi jiray aqoontiisa xagga diinta ka sokow xaaji cali wuxuu ahaa maansayahan af Soomaaliga iyo Carabigaba
ku maansooda oo labada afba si wacan u yaqiin. qaybtii dambe ee noloshiisa isagoo xer badan wata waxa uu xaajigu u soo wareegay xeebaha Banaadir sida loo badan yahayna 1850 ama 52 ayuu duleedka magaalada Marka ku xijaabtay. haddaba sidayna la tahay siiftooyinka ay culimada Soomaalidu tiriyeen ee wacdiga ahaa midda ugu caansan ugu da'da weyn uguna qotada dheer ayaa waxaa laga dhaxlay Xaaji Cali Cabdiraxmaan. waa masafo sidii dab gubato geyiga Soomaaliyeed u wada saabatay waana dhif degaan iyo gobol af Soomaaliga lagaga hadlo oo aan laga maqlin. siiftadaas oo xaajigu uu alifka soddonkiisa waa alifka carabiga uu ku tiriyey nasiib darro nama soo wada gaarin. inta ka badbaaday oo tuducyadoodii la helayna waxay ku kooban yihiin alifka, ba'da, ta'da, jiinka, sa'da, xa'da iyo kha'da. si kolkaan u tusaaleeyo waxa ay jiifta tahay aantii Xaaji Cali ka soo amaahdo qayb ka mid ah tuducyadii uu ku tiriyey xarfaha alifka iyo jiinka. alifka ayuu ka bilaabay oo wuxuu yidhi: alifyeen ibnow aadni arrinkaad ka dhacan tahay, urur noolba lagu waanay arafa iyo soonqaad, ilaah baa ilaaheena dadna waa addoommadii, adse weli ma aabayne ma ob oo kalaa tahay, taalooyinkeer awdan maadigaa ka amar weyn, wadka duulka aynabay adma wuusan ku aqoon, mase wuusan ku ogeyn, mase waad ka adag tahay, mase inuusan kuu iman axdiba ulahaydeen. arxan inuusan garahaynin nebigii ma aynanin, injiraha hadduu laayana waa inuu alaal yahay. eedaadya ku ogaada nimaan aakhiruu faran, arwareegada adkaysta umas baa horreeyee, allow yaa ogeysiiya inay eeri go'an tahay, aan waa aamusahayaa waxa feefe iga tahay, ninayuu hadhow ooyin goortala abaajiday. qaybaha xarafka jiinka ah ee xaajigu tiriyana waxaa ka mid ahaa: jiinyeen jabow aadni ma jalbeebanaysaa, jid xun baad ku socotaaye jiscin ma u helaysaa, jees jees miyaa ku habban nin asaagi jiibsaday, jaankaaga waxaad fuudi jid siraad ma moog tahay, ninana jaamo uma taro nin joombiyadna ka af badan, jireeciisu waa sida tinjaahiisna uma kaco, ninkaan jiirta laga saarin duul jahannamaad noqoy. aan la iima jirib dhiga iyo jinatuurku waa been, muslim wa isku wada jooga jinniyuusan kuu talin, nafta waad jeclaydeena jarka ha iska xoorina. jahannamo iyo ololkeeda ma nin jiir ulaa jira, waataad u wada jeeday ragga jawhartiisii, maxaa niman jamaamiida jeexa looga soo kacay, malagii jajuubahayay aad ma joojinaysaa, jeekh dhaafka nebi waayey ma jeclaysanaysaa, qabrigiina kuu jeexan loxodkiina kuu jaran. jiirkaaga dixiraale meelaha jinaadka ah, lafta joofabaa harisaantaada jirifta ah, jeer hore waxaad faratay jildigaa ku marakici, warqad beriba lagu jiiday jeebkaa laguu gelin, wax adduunkii lala joogay majikaartan baa jira, in qayaama jiri doono nina yuusan jaaxidin, jimcaha dadkuu maraga jinniga iyo wanaaskaba. jalaalaynku wuxuu sheegay ma ku jaaxidaynaa, anjuujaa u dhiman maayaan waxba iiga juusayn, adna waana uma jeedo anna waaba jiijaday, haddii aadan jaqahayn hadalkayga jawhara, jinnigii isha caddaa iyo jafaliilla kuu tali. dhegaystayaal, maansada Xaaji Cali waa jiifto, waa masafana waad oran kartaa, saa labadu waa isku mid ah. barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhuna moogana halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo socda iyo isagoo kale hadduu eebba yidhaahdo. waxaanse dhegaystayaal idin xusuusinayaa, haddii ay idinla noqoto qaar ka mid a arrimaha barnaamijyadan ku soo aroora, inaydun wax naga weydiisaan ama aydun ra'yi ka dhiibataan, waxaad nagala soo xiriiri kartaan cinwaanka emailka VOA-da oo ah somali@voanews.com, adinka oo had iyo jeer dhambaaladiina ku xusi doona magaca barnaamijka oo ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida.